codsi baan maanta wataa oo aan idinla wadaagayaa oo aan idiin soo gudbinayaa caawintiinaan u baahanahay garab istaaggiinaan u baahanahay maanta wax badan ayaan barnaamij idiin soo gudbiyey faa'iido aakhiro iyo faa'iido adduunyo ay idinkugu jirto balse maanta anaa u baahan garabkiina iyo caawintiina mar walba garab baad isiinayseen siyaabo kala duwan iyo qaabab iyo noocyo kala duwan laakiin maanta si toos ah idinkaga rabaa garabsiin iyo inay saacidaysaan maxaan u baahanahay waxaan u baahanahay lacagtaasi naftayda khaasatan uma baahna waxaan idinla wadaagayaa walaalaha ka mida oo Soomaaliyeed oo dhibaataysan waliba hal sano iyo ka badan xaaladiisa ila soo wadaagayay Mombasa markaa joogay markaas uu ila soo wadaagayay bahalkan neefta lagu xirto oo macnaha يعني qofka naqaska markuu dhago loo isticmaalo iyo kiniini allergy iyo xaalad markaa ku taagneed iyo caawa ilmihi dab iyo mashidna iyo buu idhihi jiray wixii markaa awoodan uu tuuri jiray kiniiniga u gad bahasha u gad saas aan hawsho ku socotay xaaladii shaqooyinkii baa ka xumaaday asageena xanuunkaas iyo xanuuno kala ku dhacay gurigu soo fariist marka hadda maanta wuxuu naga rabaa oo walaalayaal aan rabaa inaan idinla wadaago mar hore ila soo wadaagay laakiin ana mashquulay meeshii waa ka tagay meel kale u aaday isla kiyada dhexdeeda laakiin xuduudka xagaana oo taraagyada ka baxanay Mombasa oo Kongay dhulka u sii socdo ay sii maraan markuu wuxuu yiri meel yar ma raba maqaaxi yar ka sii ka samaysto oo dadka safarka maraya safar badan baa meesha maray aan ka gato cuntadii iyo waxyaalahaas oo aan marka halka xalay kala soo baxo wixina ma awoodo booska xataa uu helo weyla wadaagay laakiin wuxuu kor kaga dhistay wuxuu ku habaysto ayuu la yahay adiga markuu ii sheegay lacagta ku baxaysa ilaa 1500 adiga 200 oo kun wax ku dhaw ama 200 oo kan laakiin ya 1500 ayuu ii sheegay walaalayaal marka walaalkaas halka u dhisno ilaahay subhanahu wa ta'ala dhamaantiin guri iyo qasri jannada hayna kaga dhisay anu kacana walaalayaal lambarkiisan toos idinkugu sheegaya biidnillah toos baad la xiriiraysan imbeersadaad ugu shubaysan qofkii 10 kor u diray qofkii 1000 shilin u diray qofkii 20 dollar u diray qofkii 100 dollar u diray qofkii 1000 u diray qofkii iraadaba inta uga baxaysan kafaalo qaaday bixinaya ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaan uga baryayaa adduunyo aakhira ilaahay barakeeyo wax dhibaan u santusay subhanahu wa ta'ala walaalkaas aynu ka farxino walaalayaal aynu garab siino meeshaasi aanu asaasno si oo qotul durigiisa uga soo baxo reer bulay caruur bulay asagana xanuunada ku tacalluqa ergaan u ahay waa u shafiicaya waa idinla wadaagaya aynu garab siino wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi markaad walaalka u kaalmeynaysid ayaa adna ilaahay ku kaalmeynaya aanu degdegno walaalayaal meeshaas ina u dhisno ayuu naga rabaa lambarkiisana waa idin soo gudbinaya toos oo la xiriir lambarkiisa Kenya lambarkaas imbeesu u leeyahay waad ugu shubaysan insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa maalmaha soo socda inay u dhameystiranto meeshiisi oo dhisto oo meeshiisi u hirgasho oo shaqadiisa wato insha Allah ta'ala Allahna asagana u barakeeyo arsaaqada walaagsan Allah ka siiyo subhanahu wa ta'ala lambarkiisa waxa weeye walaalkan balaas 25 47 saddex hal saddex eber sagaal eber يعني كي مركات جوكتيد وسيرة 7 22 31 30 9 مركات كي كبحسنتها فراها كي تقليني ساه أو بلاس 25 47 لبا صدح هل صدن يكو يعني صدح سيرو أو صدن يسقال سيرو بمعنى السقاشن بقدم بيه الله يدن بركيه codsigaygaasina qaadi doontaan fulin doontaan waan hubaa hadaanan hubin idin lama wadaagi lahayn walaalkaasi aynu garab siino ilaahay hayna garab siiye